بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر وسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أقدر بس دلبنا حدا مر لو حدا بس دلبنا حر وأنت أنت 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 حين سنة على سريست لها. أوكي ومدة الصومالية waxaa ka codsatay bas hadda ka horna waa ka codsatay miya marka hadda markii labaad ummadda Soomaaliyeed waxa uu sheegaysaa inaad meel dheer ka timaado oo u baahan tahay bas aad soo raacdo adiga iyo caruur kale هذا وما سنت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومركل المستقيم يا عبد الحكيم إذين سو جيدين أيو عطسيد كوساب سناي إن تكقيب قادتان وحبرد عروت أغونته هذا نسيد عاد مقليسان ويل كان يروك هذا لاي وحو عطسيد بس مال لير أيو كي ماذا إلا 6 كيلومتر عمل أيو 6 كيلومتر مال كفو كي ماذا هذا كهرنا وحو عطسيد إن بس لو قضى سكول كي أغونته عروته haddana wuxuu yiri mar labaad maalmihii roobka lagu jira dhaxdu ku soo qoyaa marka wuxuu yiri waxaan u baahanahay mar kale iyo cidii bas noo iibi lahayd marka insha Allah taasuna waa taas bismillaah wal assalaamu alaykum warahmatullaahi ta'ala wabarakatuh aniga magaciigu Mari Maxamed Maxmuud oo dhigtay iskuulka Haweenka Al-Mustaqim waxaan hadda iskuulka soo bilaabay fasalka 3 haddana waxaan fasalka 7 iskuulka Al-Mustaqim aad ayuu u mahadsan ciid noo gadan soonki badarka wana siiyaan dharkana waa naga bixiyaan aad u mahadsan Soomaalida bismillaah magacaygu waa Maa'ido waxaan dhigtay iskoolka Al-Mustaqim ee dugsiga dhexe waxaan ka soo bilaabay fasalka 3 hadartaana waxaan ahay fasalka 7 waxaan rajeeyay in Al-Mustaqim aad ayuu mahadsan yahay maadaama ay naga bixiyaan sanad kasto soon bishan badarka aan cunno lahayn iyo dharkeena ciida uniformkeena aan soo ku dhiga lahayn intaas dhan waxaan ugu mahadnaqayaa maamulaha guud iyo maamulaha dhammaan bahda ka qayb gasha waxbarashada kadibada waxbarashada caruurta agoonta aad ayuu mahadsan yihiin waxaa jira caruur yaryar oo aan aysan waxbarasho oo agoon ah waxaan rajeynayaa ummadda Soomaaliyeed in ay ka bixi doonaan waxbarashada in ay siin doonaan waxbarasho wanaagsan walaalayaal waa mar kale iyo Cabdi Xakiim iyo Al-Mustaqim waxaan idin ka codsanaynaa mar walbana idin ka codsano in aad nagala qayb qaadataan agoonta iyo danyarta sidii wax loo bari lahaay maanta waxaan rabaa inaan intaas idin kugu daro waxaan u baahanahay inaan iskuul insha Allah aan mustaqbalka dhow iyo kan fogbe aan qorshihiisa hadda aan bilowno oo iskuul mataqaanaa wax kasta leh jiif leh meeshii caruurta wax ku cunayeen leh gym kale oo ku baxayso ilaa $1 million ayaan u baahanahay hawshiisa inaan galno arintii baskir arintiisa way taagan tahay in bas loo iibiyo caruurta sida hadda aad maqlaysaan caruur meel dheer ka timaada jirto baski aan u baahanahay waxaan kale u baahanahay bilaha soo socdo oo waliba hawsheeda in mar dhow la gala ay tahay kuraasta iskuulka ayaa mataqaanaa baaba ah oo aad u jajaban lacagteeduna ma yaro annaguna lacag meel noo taalo aan hawshan ku qaban mar kastaba ma taalo lacagta adinka tan ay dhiibtaan waayo marka cidii kursi gadi karto iyo cidii mataqaanaa laba jiingad gali karto iyo alwaax iyo cid kastaba sidee uga qayb qaadan karto dhismihii iskuulka mustaqbalka la dhisayo weynaay yaa bas iibi karo baska qayb ma ka noqon kartaa kuraas ma gadi kartaa buugag iyo qalmaan waa loo baahan yahay waxyaalo badan oo loo baahan yahay marka waxa la leeyahay wixii aad ka qaybta aad ka qaadan karto waxaan ka codsanaynaa inaad ka qayb qaadato akoonada iyo taleefanada aad la soo xiriireysana mar kastaba fiidiyowga meesha ugu dambeysay ay ku jiraan insha Allah waa isku soo noqon doonaa maalmo badan ayaan idin soo gudbin doonaa sida aad uga qayb qaadanaysaan wabillahi tawfiiq wassalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh Al-Mustaqim Foundation waxay mas'uuliyad iska saareen in ay caawiyaan caruurta agoonta ah oo ay dabaraan waxbarashadooda buugaagtooda qalimaantooda iyo dharka iskuulka ay ku dhigan lahaayeen iyaga oo kaashanaya dadka Soomaaliyeed waxaad sanadkii bixin kartaa $360 ama 6 bilood 180 ama xitaa 3 bilood $90 oo kaliya si aad u caawiso wiil ama gabar yar oo agoon ah oo aan haysan waxbarasho iyo garab adigoo helaya xiriirka qofkaad waxbarashadiisa damaanad qaaday waxa kaliya adduun iyo aakhira ku anfacaya waa sadaqo waliba agoonta waa laga dardaarmay shaah iyo shaxaad shilimaad aad ku bixiso ha ku badbaadi waynin qof dhan mustaqbalkiisa